iyadoo uu qiimaha shidaalku kor u kacay in ka badan libinlaab magaalada Hargeysa waxa sidoo oo kale qiimahoodu cirka isku shareeray maciishadaha kale xataa waxa qaaliyoobay qiimaha nooliga lagu raaco basaska magaalada arrintan ayaa sababtay in ay haweeneyda ay suuqa ku dhex oydo kadib markii ay shilimaadkeedii waxba u goyn waayeen arrinta hooyadan daada ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay galgishay baraha bulshada kadib markii ay oohin miciinsatay iyada oo fariintan u dirtay xukuumadda gawaaridi waa la kordhiyay meeshadii lama gaarayo sidaanu yeelaa baqti baan Hargeysa wallaahi billaahi ku jirna anu laba nin oo waalan baan haystaa ilaahay baa saygu oge waxaan u kariyo iyo waxa siiyo midna uma hayo maxaa loola hadli waayay nimanka baaya misharka dhargay maxaa loola hadli waayay oo loo oran waayay war naga jabiyo wuxuun maxaa loola hadli waayay suuqaanu dawarsanaa kolkayna finna qabatay annaga ciidii ayaa u dhalanay ayaan suuqa meermeerna aanu baranin kolkaanu xoog lahayn aanu baranin Allah ya nagala hadla insha Allah wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saajin oo maalmo ka hor warbaahinta la hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in ay sare u kaca qiimaha maciishada tahay in ay dan yartu iska bixiyaan maadaama oo ay iyagu yihiin kuwa ugu dambeeya ee isticmaalaya maciishada horta waxa weeyaan badeecadaha wadanka way qaaliyoobeen aad leedahay dibad baa ka keenaa ma beerano waxay ku xiran tahay kolba qiimaha dibaddu siduu yahay containeriski wax lagu soo qaadan jiray ee $2,000 lagu keeni jiray dhowr iyo $10,000 bay marayaan marka sidaa ay dhacdo dee badeecadu way qaaliyoob ninka badeecada keenay imika waxaan qabaa macaashka ugu yar inay helaan baabishtay marar ay sida marka badeecadu aad u jaban tahay macaash bay helaan macaashka ugu yar bay helaan waan ognahay wuxuu ku jooga dadka ma oran karo ku iibiya wax qiimaha soo sitay ka yar arrimo politics caalamka jira container reer galbeed baa inaguna China xageeda u kacay iyo lagu qaaleeyay waxa bixinaya ka isticmaalaya badeecada bixinaya marka haddaba su'aashu waxay tahay ma danyarta ayay tahay in ay dalka wax soo saar ka sameeyaan mise ganacsatada dibadda ka soo dejiya maciishada dhinaca kale in ka badan 500 oo ka mid ah gaadiidka magaalada Berbera ka soo qaaday raashinka iyo alaabaha kale ee daruuriga ah ee ka soo dega magaalada Berbera ayaa sheegay in ay kordhiyeen qiimihii ay gaadiidkooda ku kareen jireen kadib markii ay xukuumaddu waxba ka qaban weyday qiimaha shidaalka ee cirka isku sii shareeraya waxaan ku hadlaynaa waxa weeyaan tan sixir barar ma wadno dhibaato kalena ma wadno wax kalena ka hadli mayno laakiin wayna saamaysay shaqadu iskeed bay isaga kaaya taagtay annagu inaan wax kordhino diyaar uma aanan ahayn dunuufo badan oo aan u adkaysanayna baa jiray imika way ka sii dartay nooliga aanu gaadhiga Hargeysa ama Berbera ugu qaadayno iyo naafatadii gaadhiga lagu shubayay inta uu isticmaalayay khalas way iskoosanaysaa taayir iska daa saliid iska daa service kale iska daa waxa soo dhintaan la gaadhin dunuuftuna markii hore ganacsiga iyo raashinka iyo sixir barku xaggaas ka jiray imika wuxuu naga soo saameeyay xaggii shidaalka annagoo ah ururka gaadiidleyda Tawfiiq waxaanu go'aansanay maadaama uu shidaalka iyo wax walba ay sixir barar noqdeen halkana aanu isku joogno imika 550 gaadhi inta maqalina birito haddii aanay ka soo qayb gelin shirkayaga ma geli doonto meel go'aankaanu qaadnay waxa weeye inaanu kordhino sixirka mar haddii cid waliba sixir barar waxeedii ka dhigtay annaguna waxaanu dad ku dhex socday waxaan gaadiidka ee saxda waanu kordhin doonaa si aan dadka la jaan qaadno ee carruurta iskuulka u dhigtay hase ahaatee markii ay dhacday in kor ballaaran shidaalka ku yimi isagoo $90 ah maantana uu $170 marayo annagana nooliga daabulkee aanu kordhisanay ugu dambeysay 5 sano ka hor ka transitkana 15 sannadood ka hor baa u dambeysay wax transit oo la kordhiyo waxay noqotay inaanaan shaqayn karayn inaanaan ka shaqayn karayn dhibaatada sixir bararka shidaalka iyo waxyaabaha socdee kale faraha badan leh saliidu ka mid yihiin taayirku ka mid yahay dadka baraha bulshada isticmaala ayaa aad uga falceliyay arrinta haweeneyda da'da ah ee suuqa ka dhex weyday waxaana mas'uuliyadaasi ku eedeeyeen wasiirka ganacsiga oo ay ugu baaqeen in uu iscasilo Maxamed Sadiiq Dhame ayaa waxa uu leeyahay
imise hooye ayaa hoos u ilmaynaysa, imise aabba ayaa ubadkoodii wuxuu kula noqda la. hooyadani mas-uuliyadda lagu ciilay nolosheeda waa lagu ciqaab mudanayaa. ummad ahaan aan ka jawaabna dareenkan culus. xamse xaamudna wuxuu leeyahay ma wasiirka ganacsiga ayaa sababay sixir bararka mise cashuurta ganacsatada lagu kordhiyey. faatax siyaad ayaa waxa uu leeyahay wasiir iscasil waad ku fashilantay xilkii ummadda aad u haysay. xamse khayro oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani ayaa waxa uu leeyahay iscasilaadu waa aqbalaad mas-uuliyadeed, waana sharaf. hagrasho, dadaal la-aan iyo dhagaha oo aad ka xidhatay muddo 12 bilood ah. xaaladda cakiran ee nolosha dadka ayaa ka mid ah cadhada gadoodisay shacabka. xil godasho la-aantu waxay halis gelinaysaa aaminaadda qaranka, deganaanshiyaha dalka. fursadda lagu siiyey mudane wasiir ka faa'iidayso cadceeddu inta aanay soo bixin ka hor oo dadka u fuudee in ay gaadhaan madaxweynaha oo leh mas-uuliyadda kama dambaysta ah ee arrimahan. barkhad ladiif ayaa waxa uu qaba aragtidaas mid ka duwan, waxaana uu leeyahay afrikaan xil iskama casilee, aynu xal kala keenno. wasiir sacaad cashuurta ha ka dhaafo shidaalka iyo maciishadda, waa xalka ugu dhow ee wax lagaga qaban karo sixir bararka. cabdirasaaq wuxuu leeyahay ilaahay calaamaha ka muujiya kuwa sidaa dadka waaweyn iyo bulshada aan ka naxayn ee tooduun wata. cabdicasiis cali ayaa waxa uu leeyahay dowladda uma aynu samaysan inay dhibaatooyinkeena korjooga ka noqoto ee waxa aynu u dhisannay in ay culayska inaga dulqaado, inoo fikirto oo ay inoo raadiso nolol fiican. mar walba oo ay wax dhacaan dowladnimadeenu waxay baratay in ay dhibanaha iyo dhibta u kala baxdo oo ay iyagu isla dhammaadaan ama ay iskeed isku xalliso. dadku iyaga uunbaa culayska dhabarka ku qaadanaya. foosi wadaadyare waxa uu leeyahay hooyadani qalbigeenna ayay gelgishay, waana dhibic ka mid ah badweynta baahan ee bulshada ka midka ah. hooyadan baahida waxa u dheer raggii ay dhashay oo maskaxda ka xanuunsanaya.